maareeyaha jidadka iyo wadooyinka Soomaaliland ayaa maanta gaadhay deegaanka Tukaraq halkaas oo ay ka jirtay dhibaato ballaaran ay roobabkii lixaad kale ka daay deegaankaasi u geysteen wadada laamiga isku xidha gobolada galbeedka iyo sidoo kale kuwa bariga. wadadan ayaa waxa gabi ahaanba go'ay buundada ku taala dhinaca bariga ee magaalada Tukaraq ee gobolka Sool, waxaana gabi ahaanba maalmihii u dambeeyay istaagay isku socodka gaadiidka ee u kala goosha gobolada galbeedka iyo sidoo kale kuwa bariga. haddaba waxaa saaka si degdeg ku tagay deegaankaasi maareeyaha jidadka iyo wadooyinka Soomaaliland iyagoo gabi ahaanba saaka bilaabay shaqada wadadaasi. waxaana halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta wasaaradda jidadka iyo gaadiidka iyo sidoo kale odayaasha waxgaradka deegaanka Tukaraq oo sheegay inay si degdeg ku dhameyn doonaan dhismaha wadadaasi. halkan waa buundadii Tukaraqeed ee go'day. waxaanu aad uga mahadcelinaynaa gurmadka degdega ah ee qaranka Soomaaliland ee sanka isku haya ay ku soo gaareen buundada waxna ka qabteen. maalinkii shalay gurmadkii koowaad horta waxa ka galay ciidamada qaranka iyo saraakiishooda ayaa galay. isla maanta shaqadii oo ficil ah ayaa ka bilaabantay buundadii go'day ee Tukaraqeed. aad baan uga mahadcelinaynaa. waxa Ilaahay mahadiya waxyeeladii wadada uu soo gaarsiisay roobkii daay ee laba habeen ka hor goday wadadii goday oo maantana laga shaqaynayo oo ay soo gaareen maareeyaha wadooyinka Soomaaliland iyo injineeradiisii iyo cagafyadiisii iyo iska rogooyinkii oo ciidu saaka ku socoto oo saaka shaqadii ku bilaabatay ayaa Ilaahay mahadiya sida degdeg gale ee loogu soo dhaqsaday. annana waxaanu la diyaarnahay nabadgelyahan iyo xoog ahaanba wixii nagaga soo hagaaga iyo wixii siyaadeen ku dari karaba wixii kale kaalinta kasta oo ka banaanaata inaanu buuxino ayaanu anagu masaaka diyaar lanahay. shaqadii nasiib wanaag way noo bilaabantay, ilaahayna noo fududeeyo. waxa kale oo aan halkan mahad ugu celinayaa deegaanka odayada duqeyda ee degmada hadii la ku roon yahay Tukaraq. bidmillah sida ay noogu bilaabantay baan wadanaa, ilaahay noo fududeeyo. waxaan si guud u codsanayaa in ilaahay noo fududeeyo nagu soo duceeyo hawshaas inay noo hirgasho, si fiican noogu hirgasho. waxa kale oo aan ballan qaadanaa bidmillah taala hawshan inaan la kala joojinayn, waayo waa la socdaa wadada qaybaheeda kale ilaa Gambara ilaa iyo hadii cadays waa la wadayaa mashruuca bidmillah taala. kan waa ku emergency hawlkaasha kalena waa dhinac wadaya wax laga dhigayaa shaqo kale oo ka duwan, laakiin waa hawl aad u ballaaran. ilaahayna waan la kaashananaa. maxamuud aadan askar, maxamuud guray, Somali News TV, deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool.